الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، walaalayaal dhammaan waa idin salaamayaa meel walba aad dunida ka joogtaan. waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak meel walba aad joogtaan. taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. allah inaga aqbalo idinka iyo annagaba dhammaanteena cibaadada insha allahu tacaala. walaalayaal, waxaan ku jirnaa 10kii dambe ee bishii ramadaan, bisha barakeysan. walaalayaal, waxaan idinkaga rajeynayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu idinka mid dhigo malaayiinta maalin waliba laga xureynayo naarta jahanamo. bisha ramadaan fadligeeda waxaa la yiraahday maalinta ugu horeyso ee bisha ramadaan, ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa malakul jibriil ayuu wuxuu faraa inuu arlada oo usoo daadego oo shayaadiinta oo xirxiro kuwooda madaxa adag iyo jinka. waxaa kale oo faraa ilaahay subxaanahu watacaala malaga maalik naarta fureeda haaye inuu naarta albaabadeeda qab oo siiyo oo xiro. wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu watacaala oo faraa jannadiisa inay isku qurxiso addoomihiisa wan wanaagsan ee sooman bisha ramadaan. waxay mudan yihiin inay dhibka adduunyada kasoo baxaan iyo rafaadkeeda ay soo aadaan daartiisa ee daarul karaama ee jannada ah. waxaa kaloo la yiraahday xuurul ciinta jannada waxay weydiistaan ilaahayow subxaanahu watacaala, waxay ku baryaan ee dhahaan ilaahayow addoomahaada wanaagsan ee sooman zawjaad inooga dhig, annagana aswaajtooda ilaahayow naga dhig ay dhahaan. ilaahayow aswaaj nooga dhig, annagana zawjaadkooda naga dhig ayay ku duceystaan xuurul ciinta jannada. walaalayaal, bisha barakeysan ee ramadaan fadaaisheeda lama soo koobi karo. marka waxaa kaloo kamid a bisha barakeysan ee ramadaan fadaaisheeda inuu ilaahay subxaanahu watacaala maalin waliba ee ilaahay keeno inuu sida ku sugan saxiixu tirmidi sida ku sugan inuu maalin walba ilaahay subxaanahu watacaala oo kumanaan malaayiin qof oo ka xureynayo naarta jahanamo. maalinta bisha ramadaan ugu dambeysana inuu ilaahay subxaanahu watacaala oo ka xureynayo maalin walba ee bisha ramadaan cadadka uu soo xureynayo cadad lamida inuu maalintaasna ka xureynayo. waxaa kaloo lasoo wariyey maalinta ugu dambeysa ee bisha ramadaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu malaa'igtiisa oo kulminayo oo leeyahay addoomahayga wan wanaagsan, qofkii camalkiisa iyo shaqadii loo dirtay gutay abaalgudkiisa maxaa waaye. markaas waxay leeyihiin ilaahay dambi dhaaf. marka wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay markhaati ka noqda addoomahayga inaan dembigooda dhaafay oo dembi dhaaf aan siiyey. marka saxaabada rasuulka ka mid ayaa wuxuu yidhahda ilaahay rasuulkiisiyo habeenkaasi ma habeenka leylatul qadarka? markaasuu yidhaahda may. wuxuu dhahay qofka soomaadan arkin uu dhahay qofka shaqada bishoo dhan soo shaqeynayay oo caamilka ah oo shaqadiisa gutay inuu mushaarka uu qaadanayo bisha markay dhammaato. marka abaalgudka qofka sooman ee bishoo dhan soo soomna abaalgudkiisa waxaa looga dhigayaa iyo ujradiisa dembi dhaaf ayaa looga dhigayaa. marka bisha barakeysan waxaa ku jiro fadaa'il fara badan. waxaa lagu helaa naxariista ilaahay, waxaa lagu helaa dembi dhaafka ilaahay, waxaa lagu helaa xureen oo naarta layska xureeyo. waxaa kaloo dheeraad ah oo ku jira habeenka leylatul qadarka ah. leylatul qadri khayru min 1000 shahrin tanazalu almalaa'ikatu waruux. waa habeenkaas waruux waxaa waaye macnaheeda malakul jibriil ayaa habeenkaas soo degayo. marka habeenkaasna wuxuu ka qeyr badan yahay 1000 bilood ayuu ka qeyr badan yahay. wuxuu la mid yahay habeenkaas qofkii ilaahay ajarkiisa waafajiyo, qof 83 sano soo camal falaayay ayuu ku ajir yahay.
marka khayraadka bisha ramadaan ku jiro aad iyo aad ayuu u fara badan yahay. waxaa bisha ramadaan ka mid ah khayraadkeeda, waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala oo bisha ramadaan ay tahay bisha qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala oo soo dejiyey. marka bisha ramadaan ee barakeysan waxaa ku jiro qiyaamuleyl. nabiga sal ly slam wuxuu dhahay qofkii ilaahay dartiis u soomo bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban dembigiisa ayaa la dhaafayaa. waxaa kaloo lamid oo dhahay nebiga sal slam qofkii ilaahay dartiisna u qumaa oo qiyaamuleylkeeda ula imaadana inuu ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa u dhaafayo. marka bisha ramadaan fadaaisheeda aad ayay u fara badan yihiin. waxaa kaaga filan fadaaisha bisha ramadaan, waxaa kaaga filan xadiiskii nabiga sal ly slam ee laga wariyey maalmaha ka mid a ayuu asagoo mimbarka masaajidkiisa u korayo talaab ayuu qaaday aamiin ayuu dhahay, talaab kale ayuu qaaday aamiin ayuu dhahay, talaab kale ayuu qaaday aamiin ayuu dhahay. markaasaa waxaa la yidhaahday saxaabadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiyo waxaan kugu aragna waxaan kugu arki jirin, marka maxaa waaye dheheen. markaasuu wuxuu yidhaahday aamiintii hore aada maqlayseen malakul jibriil ayaa duceynayay ama inkaartamayay, anigana aamiin ayaan u dhahay. mar labaaduu inkaartamay aamiin ayaan u dhahay, mar saddexaaduu inkaartamay aamiin ayaan u dhahay. inkaartii hore waxay ahayd u dhahay nebiga salam wuxuu yidhaahday qofkii bisha ramadaan haleelo dembi dhaafkeedii iyo maaragta khayraadkeedan aan helin naarta allaha ku fogeeyo, aamiin ayuu dhahay. maxaa u malaynaysaa inkaar nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo aamiin u leeyahay, malakul jibriilna oo inkaartamaya nebi maxamedna aamiin u leeyahay, meesha ay gaarsiisan tahay qofkii bisha ramadaan ku qado intaas ayay gaarsiisan tahay walaalayaal. marka cajiib waa qofkii ku qado bisha ramadaan waa qof khasaaray, fanacuudu billaah. maxaa yeelay 12 bilood ee sanadka waa bishii ugu maaragta weyneed bilaha 12 bilood ee sanadka waa bisha ugu weyn, waa bisha ramadaan. maxaa yeelay nebiga sal slam wuxuu dhahay sayidu shuhuur waaye, bilaha sayidkooda. marka bishaan qofkii jicsin fiican qaata 11 bilood oo kale qalbigiisa iyo ruuxdiisa way noolaanaysaa. qofkii bishaan ku qadaay 11 bilood oo sanadka ka dhiman qalbigiisa uu dhimsanaanaya, fanacuudu billaah. marka inkaarta labaadna waxay ahayd nebiga sal slam wuxuu malakul jibriil yiraahday qofkii magacaada agtiisa lagu xuso oo aan kugu salinin naarta allah ku fogey, kaas mid inkaaran waaye, aamiin ayuu dhahay nebiga sal slam. wuxuu kaloo inkaaray malakul jibriil wuxuu yidhaha qofkii waalidkiisa mid ka mid a ama labadooda haleelay ducadoodana aan jannada ku gelin, kaasna waa mid inkaarane, aamiin dheh, aamiin ayuunu u dhahay, naarta allah ku fogeeyo dhahay, kaasna waa mid inkaarane, aamiin ayuunu dhahay nebiga sal ly slam. marka walaalayaal waa 3 shay oo kala daran, ilaahan ka maangalnaa waalidka iyo nebi maxamed sal slam oo la qadariyo iyo bisha ramadaan waa 3 shay oo aad iyo aad u waaweyn, ilaahay agtiisa ku waaweyn. marka walaalayaal waxaan iskala dardaarmaynaa bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteena allahna waafajiyo khayraadkeeda, inaan ku dadaalno qur-aan akhriska, inaan ku dadaalno khayraadka iyo sadaqada, inaan ku dadaalno wanaagga, inaan ku dadaalno allabariga, inaan ku dadaalno ilaahay subxaanahu watacaala oo dembi dhaaf la weydiisto. maxaa yeelay ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam sidii saxiixulbukhaari kusoo aroortay ee bisha ramadaan lagu ducaysto waxaa waaye allaahuma inaka cafuwun kariimun xaliimun tuxibu alcafwa facfu cannaa yaa allah facfu cannaa yaa allah facfu cannaa yaa kariim facfu cannaa yaa raxiim facfu cannaa yaa gafuur facfu cannaa yaa gafaar yaa allah yaa tawaab yaa raxiim. marka ilaahay oo dembi dhaaf la weydiistaa, cibaadada oo dhan waxaa asal u ah oo lagu khatimaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf la weydiistaa. salaada waxaa lagu khatimaa ilaahay oo dembi dhaaf la weydiistaa. soonka waxaa lagu khatimaa ilaahay oo dembi dhaaf la weydiistaa. sadaqada waxaa lagu khatimaa ilaahay oo dembi dhaaf la weydiistaa. zakada waxaa lagu khatimaa ilaahay oo dembi dhaaf la weydiistaa. wasalli calayhim ina salawaataka sakanun lahum, waa ka aayadda qur-aanka lagu sheegaya
markuu nebiga sal slam ka qaado zakada mu'miniinta inuu u duceeyo. marka cibaadooyinka oo dhan waxaa lagu khatimaa dembi dhaaf si allah subxaanahu watacaala oo cibaadadaada waxyaabihii yaryar ee kaa dhacay kuugu dembi dhaafo. marka walaalayaal waxaa iskula dardaarmaynaa in dembi dhaafka la badiyo, ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf la weydiisto, khayraadka iyo wanaagga lagu dadaalo, uu maaragtay annagana aan isfarno. ilaahay subxaanahu watacaalana waxaa ka baryaynaa inuuna haleeshiyo bishaan barakaysan khayraadkeeda iyo wanaaggeeda. waxyaabaha loo kaashan karo waxaa ka mid a walaalayaal inaad wanaagga ku dadaashid, inaad acmaashaada wanaagsan iyo khayraadka iyo cibaadooyinka aad la imaanaysid inaad xafidatid. maxaa yeelay waxa waaye khasaaro, bal waxa waaye khasaarada ugu weyn inaad maaragtay bisha ramadaan aad soomaysid, addoomaha ilaahay subxaanahu watacaalana ay kaa nabadgelaynin. midka aragtid aad xamanaysid, carabkaada, ishaada, afkaada, gacantaada aysan kaaga magangelayn addoomaha ilaahay subxaanahu watacaala. maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey waxaa ugu badan ee jannada lagu galo, wuxuu yidhaahday taqwa allah wa xusnu lkhuluq. waxa waayo dhaa waxa ugu badan ee jannada lagu galo alla ka cabsi iyo akhlaaq wanaagsan. waxa ugu badan ee naarta lagu galo marka la weydiiyena nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday waxa waaye alfamu iyo walfarju, waa afka iyo farjiga. fancuudu billaah, labadaas waa wax ugu badan ee naarta lagu galo. walaalayaal camalkaada wuxuu u baahan yahay acmaasha wanaagsan oo aad la imaanaysid xifdin ayay u baahan yihiin. waxay u baahan yihiin xifdin, inaad xifdisid salaadaada, soonkaada, zakadaada iyo xajkaada iyo cumradaada iyo khayraadkaada inaad xifdisid ayay u baahan yihiin. haddii aad addoomaha ilaahay aysan kaa nabadgelaynin oo akhlaaqdaada xun tahay, waxaad tahay ahlu naar. haddaad doontaba duko, haddaad doontaba soon, haddaad doontaba salaad, haddaad doontaba zaka la imaw, ahlu naar ayaa tahay. maxaa yeelay acmaashaadii waxaa u kala qaybinaysaa ilaahay addoomihiisa. midka aad xamanaysid camalkaada siinaysaa, midka aad wax ka sheegaysid camalkaada siinaysaa, midka aad aflagaadeynaysid camalkaada ayaa siinaysaa, midka aad maaragtay afkaada iyo dimhaada iyo gacmahaadaba ku dhibaateynaysid acmaashaada ayaad u qaybinaysaa, bal adiga isma dareemsanid. nebiga sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida ayuu waxau yidhaahday atadruuna man ilmuflis, muflis qofka la yidhaahda ma garanaysaan asxaabteydiyo? markaase waxay yidhaahdeen nebi allow almuflisu fiina man laa mataaca lahu walaa dirham. muflis waxaan u naqaanaay dheh nebi allow qofka aan xoolo lahaynoo faqiir carab dhacay ah oo maal iyo xoolaba aan lahayn. markaasuu nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday mufliskaas lama yidhaahdo dhahay. maxaa yeelay faqiir adduunyo dhib ma lahan, waa laga soo kabtaa. faqri adduunyo waa laga soo kabtaa, waa laga soo kabsadaayo dhahay. laakiin almuflisu min ummatii, muflis waxaa waaye dhaha ummadeyda, muflis waxaa waaye dhahay man ya'tii bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin, wuxuu la imaanayaa soon badan, salaad badan, zako badan, cibaado ayuu la imaanaya, waa ahlu cibaado. wayatii waxuu kaloo la imaanayaa akhlaaq xunna wuu la imaanayaa, wayatii qad shatama haada waqadafa haada waakala maala haada wasafaka dama haada. waxaanu akhlaaq xumaana wuu la imaanaya, kanuu dilay, kanuu dhacay, kanuu maaragtay dhiigiisa qubay, kanuu caayay, yacni akhlaaq xumo fara badanna waa wataayo dhaha nebiga sala allahu calayhi wasalam. marka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday ninkan akhlaaqda xun leh bal oo soonka iyo salaada iyo zakada fara badan wato, maalinta qiyaama waa laga daadsanayaa, wixii camal oo watay waa laga daadsanayaa. waxaa imaanayo dhaha nebigi sala allahu calayhi wasalam, waxaa imaanayo dhahay dadkii maaragtay oo wax ka sheegay, midka uu dilay, midka uu caayay, midka uu aflagaadeeyey, midka wax yeelay ayaa imaanayo. fa yucdaa haada min xasanaati wahada min xasanaati wahada kan
waa acmaashiisii la kala qaybinayaa, xasanaadkiisii, salaadiisii iyo soonkiisii iyo zakadiisii. ilaahayow adduunka intaan joogo i qadfay, camalkiisa wax ka qaado. ilaahayow intaan adduunka joogo i caayay, soonkiisa wax ka qaado. ilaahayow adduunka intaan joogo i xantay, soonkiisa wax ka qaado. ilaahayow adduunka intaan joogo i aflagaadee, salaadiisa wax ka qaado. acmaashaadii waa la kala qaybsanayaa. fanacuudu billaah. marka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay fain faniyat xasanaatuhu qabla an yuqdaa maa calayh, haddii ay dhammaato dhahay soonkii iyo salaadii iyo zakadii meesha kuuma joogayaan, maxaa yeele qabaa'ilo fara badan oo caysaya kuusoo safanayo. fanacuudu billaah. oo dishay, wax ka sheegtay, oo xamatay, oo qadaftay. marka acmaashiisi ay ka dhammaadaan oo dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam, waxaa la leeyahay isku dahiriya dunuubtiinii aada wadateen oo dhan korka ka saara. fanacuudu billaah. wixii dembi ay lahaayeen ayaa maaragtay fayudraxu dusha looga tuurayaayoo dhaa nabiga sala allahu calayhi wasalam. markaa kabacdina waxaa dhacaysoo dhaa nabiga salam, naarta ayaa lagu xorayaa isagoo maaragtay dembiile ah oo qabaa'ilo fara badan dembigoodii dusha u saartay, acmaashiisii iyo soonkiisii iyo salaadiisina la kala qaatay. marka khasaare ka weyn ma jirto qofka akhlaaqda xun leh. marka waxaan iskaga faraynaa akhlaaqda in la wanaajiyo, ummadda ilaahay inay kaa nabad galaan, idimahooda, afkaada iyo idimahaada ummadda inay kaa nabad gasho, si aa maaragtay adigana u nabadgeshid maalinta qiyaamo, adduunya aakhiraba si aa nabadgeshid. addoomaha ilaahay inay kaa nabad galaan oo acmaashaada aada dhowratid, akhlaaqdaada aada dhowratid. waxaan isfaraynaa walaalayaal inaan maaragtay yeelano asxaab wanaagsan, asxaabu suu inaan ka harno. qofkii maalin kugu horxamtaa qof walaalkaa muslina inaad goysid, dadka akhlaaqda xunle inaad goysid. maxaa yeelay waxay kuu horseedayaan meelo xunxun, wadooyin xunxun. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin. asxaabta maalinta qiyaamo midkood midka kale cadow ayuu ku yahay, way is eedayaan. alla kan maxaa saaxiib iiga dhigay, kan maxaa saaxiib iiga dhigay, way is eedayaan. ila almuttaqiin, kuwa muttaqiinta moogiye. maxaa yeele muttaqiinta maalinta qiyaamo way isku bogaadinayaan, way isku farxayaan. maxaa yeele wanaagii iyo kheyrkii ay isku sheegi jireen adduunyada markii ay joogeen ayay soo xasuusanayaan. laakiin dadka xunxun maalinta qiyaamo isma arki karaan, shartii iyo balaayadii ay isla falki jireen ayay soo xasuusanayaan. midba midka kale ayuu farta ku eedayaa, maalin aysan qoomamo waxba taraynin. marka ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal waxaa iskaga digaynaa akhlaaqda xunxun iyo waxyaabaha noo horseedaya in camaasheena la kala qaybsado. marka walaalayaal meelba aada joogtaan waxaan iskala dardaarmaynaa kheyr, ayaa iskala dardaarmaynaa. nafteyda iyo naftiinaba waxaan uga dardaarmayaa kheyraadka in la badiyo, wanaagana in la badiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa walaalkiin Ismaaciil Xaaji Cali oo idin salaamayo.